السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الملك السعدون جوجتان كسو دواad cashirkeena koorsada waxa ku jirina PHP maanta cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay cashirka shala oo maaragtay ayuu wili xeel cilaaqo la sileeyahay oo ah arrays mina maanta waxa ku qaadan wax loo yaqaan associative arrays mina marka aan sharaxno oo tusaale si fiican u sharaxno ay si fiican u fahmi doontaa mina marka waad sida array loo sameeyo waa soo barna ku marka waxa sameeysanaa variable mina kadib variable marka sameeysato kadib equal ayaa leedahay calaamada assignment operator ay hore u soo barnay kadib keywordka array ayaa qoraysaa kadibna qiime ayaa ku shubanaysaa macnaha in lagu soo dabaco directly kadib waa ka variable-ka u canaysaa kadib bracket-ka calaamad bracket-kaas asoo kadib halkaas ayaa gashanaysaa meel lagu soo dabacay index-ka aragta in lagu soo dabaco shalay waxaan soo barnay index sidiisa kaliya macnaha waay kan inuu u taagan yahay index 0 macnaha kan uu taagan yahay 1 kan uu taagan yahay 2 kan uu taagan yahay 3 macnaha waay 0 1 2 3 uu kala taagan yahay marka kii rabta aan lagu soo dabaco ayaa sheeganaysaa aniga waxay hadda lambar 2 ii soo dabacna ama index-ka 0 2 anila 0 1 2 marka waxaan rabnaa markii aan dhahno refresh in uu soo dabaco ilaa waxay ahayd 400 saaka u diiday waxaasa aan ahayd refresh daanaano waxaan la soo dabacayaa 400 mina cashka shala ayaan laan ku soo baranay هذا hoos nagu deji echo ayaan leeyahay ama kan iga tirtir waayahay waxaan leeyahay break sidii uu ugu sameeyo line cusub mina waayahay save ayaan leeyahay kadib waxaan leeyahay halkaas print r kadib waxaan gelinayaa variable kaas mina print r shay waxaan ku sheegay waxay tilmaamaysaa index numberada is equal yihiin mana way marka hadda waan gareynaa bal ila fiir ay meeshaan waxaan ka tagnay meeshaas line terminator ka ayaan ka tagnay way refresh ayaan leeyahay mar labaad waa u jeedin 400 waxaan maruu waa u jeedin array ayuu soo dabacay marka index 0 waxaan ugu jira 100 index 1 waxaan ugu jira 200 index 2 waxaan ugu jira 400 waa kaasa way index 3 waxaan ugu jira 900 mina kan iga tirtir waxa dhahdaa markaas calaamada oo join ah oo isku xiriirto si ugu sameeyo macnaha waxay ahayd laan cusub mina way kaas ay copy soo leeyahay kadib inta ayaa dhiganaa mina si laan cusub lagu sameeyo way waxaan sameeysanaa markaas variable-ka ayaan sameeysanaa mina way dollar ayaan uga baxay magacyo variable-ka kadib equal ayaan leeyahay kadib sidaas aan soo baranay waa taqaanin array way marka saas ayaan leeyahay marka waxaan sameynaysaa calaamada oo maartay dhowr kuma sameeyna calaamadaha kadib magacyo magaca waayahay koowaad ayaan leeyahay banaanka uga baxaya kadib equal iyo calaamada kooyinta isticmaalaya qiime ayaan ku soo markaa calaamada koowaad waa maxamed kadib waxaa leeyahay echo si la ugu soo daawaco tirtirkuwan waxaa leeyahay markaas variable-ka magacyo ah waxay noo soo daawacdaa waayahay magaca koowaad wixii ku jira soo daawacan leh save ayaan leeyahay halkaa refresh ayaan leeyahay qalad ayuu soo saaray oo ah halkan aan ka tagnay calaamadii line terminator-ka aan ka tagnay waa u jeedin inuu loola soo daawacay maxamed way si aad taas u muuqato line cusub samee ayaa leenahay echo waxaa leenahay break si line cusub noogu samee mina way fresh ayaan leenahay waa u jeedin maxamed inuu loola soo daawacay line cusub mina
markaas waxaa leenahay print r ayaa isticmaalaya macnaha wax isbedel sa u aragtid print r print r ayaa isticmaalayna halkaas waxaa leenahay variableka magacyo aw waa kaas save ayaan leenahay refresh ayaa leenahay waa isku darsanay waxaa leenahay si line cusub noogu sameeyo Ctrl C ayaan leenahay si maaragtay line noogu dhaxaysay waaye baahi waa ujeedin kaliya waxaan noola sameeyay magac kuwan meeshan ebil ahayd day 0 ujeedin hadda waxaan ku bedelanay magac kuwan macnaha maadaama haday ahayd 0 keyword kaas isticmaalaysay laakiin hadda anaga ka bedelan waxa ula baxnay magac kuwan macnaha maadaama haday 0 ka ahayd meesha 1 waa laga sii bedeli karaa dalow ujeedin meeshas waxay keyword kaas bas ayaan bedelay macnaha associative array lagu sheegay waa haas meeshan oo 0 keyword kaas 0 isticmaalaysay aniga waxaan ku bedelana kaliya magac kuwan kaliya ayaan ula baxnay associative array macnaha halaas oo kaliya macnaha meeshas oo keyword kaas 0 1 2 keyword kaas isticmaalay just marka magac kuwan just oo keyword macnaha ina fahanteen ayaa filan macnaha marka associative array ina si fiican fahanteen ayaa filan macnaha waa kaliya 0 gas ayaan bedelnay oo ma keyword oo ku sameysnaa PHP waxaan ula baxnay magac kuwan macnaha associative array macnaha halaas macnaha ina fahanteen waa filan عشر ku xigo inta soo nimaado sidaas nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.